Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada asxaabta. Sidee looga baxsan karaa libaax ama harmacad hadduu ku soo weeraro? Deerada marnaba kama orod dheerayn karto harmacadka, balse way ka badbaadi kartaa haddii ay xeeladu isticmaasho. Daraasad cusub oo lagu sameeyey sida dameer farowga iyo deerada ay uga baxsadaan dugaagga ayaa lagu eegay xawaaraha ugaadha iyo xayawaanka kale ee ugaadhsada. Waa kuwii xayawaanka adduunka ugu dhufashada kulul. Deerada marnaba kama orod dheerayn karto, waynagii nidhaahnay libaaxa ama harmacadka ama ugaadhsadayaasha. Waxaa lagu ogaaday in libaaxa iyo harmacadku aanan marnaba laga orod badan karin, noolihii ay eryadoona ay markiiba soo qaban karaan, balse ay jiraan xirfado looga baxsan karo. La kala badi orodna ma ahan. Haddii ay ugaadha isku daydo inay xoog u cararto bahalka, waa go'aan aad u qaldan, sababtoo ah kama baxsan karto, balse waxaa jira xirfad ah inay tartiib u orodo, marka la qaban rabana ay durba leexato, ayuu yidhi Alan Wilson oo ka tirsan macadka xanaanada xoolaha ee UK. Waxyaabaha kale ee la ogaaday waxaa ka mid ah dugaagga uu ku murqo adag yahay xayawaanka loo yaqaano ugaadhsadayaashan kana orod badan yihiin. Waxaa la sheegay in xayawaanka la ugaadhsanaya uu isaguna go'aan ka gaari lahaa xawaaraha orodka iyo inta uu ordi lahaa marka ay tahay in la jiroodo ama la ugaadhsanayo mukulaalaha waaweyn. Haddaba bisada weeyaan mukulaalaha waaweyn. Professor Alan Wilson ayaa daraasad ku sameeyey dalka Namibia. Filim laga qaaday daraasadan ayaa laga baahin doonaa barnaamijka mukulaalaha waaweyn ee maanta. Filim laga sameeyey daraasadan haddaba harmacadku ayaa xawaarihiisu dhan yahay 100 kiiloomitir saacadiiba, iyadoo libaaxa iyo harmacadkuba 20% ay murqo adag yihiin. Xayawaanka ay ugaadhsanayaan 37% ay ka karaar qaadasho badan yihiin. 3 meelood meel ka mid ah ayay ku guulaystaan. Haddaba asxaabtay, ugaadhsigooda iyagoo isticmaalaya gaadmada iyo xawaaraha ayaa isku tartiibiyaan. Waxaa kale oo la ogaaday in libaaxa iyo harmacadku ay guushoodu badan tahay haddii ay xawaarahooda orodka hoos u dhigaan. Haddii dugaagga ay markasta ku guulaysan lahaayeen ugaadhsigooda, waxaa la sheegay in waqti uu ku dhammaan lahaa waxay cunaanba. Haddaba markuu sidan xayawaanku u socdo libaax oo kale, wararkii ugu waaweynaa ee la sheegayna waa sidan. Harmacadka iyo libaaxuna waa kuwa ugu ugaadhsiga badan. Maalintooda haddii la sheegayna ugaadhsi ay ku dhammaan lahayd in waqtigooda oo dhan ay noqon lahaa waxay cunaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Fadlan sii sheer garee linkigan.